asxaabta maanta waxaan idin haynaa guryo iib ah oo ku yaala gaar ahaan xaafadda Jigjigeer. guryahaasoo aad iyo aad looga shaqeeyey oo loo qurxiyey ku yaala meesha dadku ku riyoodaan. waa xaafad aad iyo aad loo jecel yahay. muuqaalkan baan ka daawan doonaa. asxaabta halkan waxa weeyaan deyrkiiyo laba gaari ay kugu xaroonayaan. ما شاء الله وقري لو دhisay cajiiba oo qurux badan. halkan waa qol yar oo store halkan waa suuli yar oo kale oo dibadda ah. halkan waa barxadii daaradda deyrkii aynu ka soo galnay waa halkan. ما شاء الله halkan daaqad buu ku leeyahay. halkaasina brandihii malbakhi iyo gurigiiba halkan gudaha ku jiraan. marka si qurux badan oo beautiful ayaa loo dhisay guriga. ما شاء الله halkan waa suuli yar oo dibadda ah. ما شاء الله guriga horeyna socon doonaa qolalka iyo madbaxa ama kitchenka dhammaan waan tusi doonaa. halkan waa barandihii si qurux badan ayaa guriga loo shaqeeyey. waxaan filayaa cabirka guriga inuu yahay 9 iyo dhinacna 24 dhinacna waa 9 mitir dhinacna waa 24. hagana waa kitchenkii oo si qurux badan loo dhisay. halkan waa qaybtii weelka lagu mariyey. waxyaabo yar baa guriga u dhiman sida lagu dhammaystiran yahay. waxaa u dhiman halkan tablekii ama khaanadihii halkan lagu sameynayay. albaabka waxa weeyaan albaab Chinese ah oo qurux badan. marka xaggan decoration baa u dhiman. marka guriga maadaama gidaarku cadaan yahay marka waxaa laga dhigay cadaan qaybo madow ah waa loo sameeyey. marka guriga sidan buu eegyahay. waa aad iyo aad u qurux badan yahay. marka haddaad muuqaalka daawanayso waxaad naga heli kartaa dhul iiba, guryo iiba, guryo kira ah dhammaan magaalada Hargeysa. shirkado badan oo kala duwan ay dhisaan. qolkan waa qolka fadhiga waa qolka aadka u weyn. halkan gypsumkii loo sameeyey baalo decoration ah iyo waxbaa u dhiman. ما شاء الله halkan waxaa laga arkayaa deyrkii baa laga arkayaa. ما شاء الله halkan waxaa ku yaala socket halkaas kana albaabadan waa Turkey. albaabka weyn guriga laga soo geliyaa waa Chinese kana waa Turkey. marka gurigu waa 5 qol. cabirkiisa waxaan filayaa inuu yahay 9 mitir iyo 24 mitir. halkan waa qol kale oo labaad. halkan waa qol kale weli leerkii baan lagu xirin guriga. halkanna waa qol kale. ما شاء الله marka waxaan idin haynaa halkan waa 4 guri. marka waxaan tusay iminka mid kamid ah. marka 4 kalena waa isku mid oo 3 kalena waa isku mid oo. qolkan waa qolkii hurdada weeyaan. halkan waa baadkii. ما شاء الله marka waa 4 guri. kan waa mid kamid ah. 3 kale ayaguna jira oo wajahada in ka tusi doono. marka waa guriga aadkii aad u qurux badan. asxaabta waxaad igala soo xiriiri doontaa lambarka shaashada ku yaala. ما شاء الله تبارك الله. كون kalena halkan bay ka xigaan qaar kale halkan bay ka xigaan. فلله الحمد. gurihii waa kuwan
halkani waa halkii wajahada ama dhinacii wajahada. Marka waa 4 guri dhinaca wajahadana aad iyo aad bay ugu qurux badan yihiin. albaabada iyo rinjiga iyo nashqada dhammaan way isleeyihiin. iminka magaalada Hargeysa guryaha waxaa loo dhisaa si casri ah oo qurux badan, oo ka qurux badan sidii berigii hore loo dhisi jiray. sidoo kale waxaan idin haynaa guryo badan oo kuwan oo kale ah iyo qaar dabaqyo ah dhammaan. masha Allah. insha Allah waxaad igala soo xiriiri doontaan lambarka shaashada ku yaala. gurigan qiimaha lagu iibinayaa waa 73,000. cabirkiisu waxa weeyaan 9 iyo 24. asxaabta sidoo kale waxaan tusi doonaa gurigan goobta ama meesha uu kaga yaalo xaafadda quruxda badan, xaafadda ku taala magaalada Hargeysa ee loo yaqaano Jigjigeer, qaybta kaga yaalo. iminka gurigii baan kasoo dhaqaaqnay ama guryihii baan kasoo dhaqaaqnay. wadada weyn insha Allah waxaan ku dhici doonaa 150 ee isku xidha wadada buurta kala jeexan ama agagaarka masaajidka Masjid Faadima dabadiisa ama dhankiisa bari ayaan hadda joognaa. asxaabta sidoo kale waxaan idin haynaa guryo kala duwan oo saas oo kale la iibinayo, sidoo kale qaar la kareynayo. sidoo kale waxaan idin haynaa dhul iib ah oo qiimayaal kala duwan lagu iibinayo oo ay ku kala xidhan tahay qiimaha la siinayo cabirka uu yahay iyo goobta kaga yaala magaalada, iyo inuu leeyahay bas iyo in uu dhow yahay meelo suuqyo ah. waxay keenaysaa qiimuhu inuu kala duwanaado meesha ku yaalo. sidoo kale haddii aad u baahan tahay dhul iiba iyo meel wanaagsan ku yaala ama qiimaha aad doonayso, WhatsApp waad igala soo xiriiri kartaa. waxaad ii sheegi doontaa dhulku halkaad ka doonayso iyo qiimaha aad ku doonayso ayaad isku soo raacin doontaa. cabirkaad doonayso, dhulka qiimaha aad doonayso, meesha aad ka doonayso, qiimaha aad ku doonayso oo meelahaas. marka insha Allah waan kusoo jawaabi doonaa ama lambarkaad iga soo wici doontaa. asxaabta iminka xogaa baan soo soconay wadadii 150 markii aan guriga kasoo dhaqaaqnay ku leexan karinay, laakiin aniga halkan jeclaystay inaan soo maro. iminka laakiin waxaan ku leexan doonaa wadada 150 qaybteeda xigta buurta kala jeexan ama waxaa la dhaafayaa jaamacadda Almas University ee ku taala gaar ahaan basaskii hore Jigjigeer areas. marka this area is considered one of the best places ay ka tirsan tahay meelaha ugu fiican kan wadadii baa marsan ka wadada ma samaysna 150 qaybtan galbeedka ma samaysna. waxay ku joogtaa wadada Jigjigeer bay ku joogtaa. marka halkan ma samaysna, laakiin labadii hadda way diyaarsan yihiin. diirarkan wadada kasoo jeeda saarimka. marka guryahan in yar bay jiraan. sidoo kale buurta kala jeexanna in yar bay jiraan, way ka dambeeyaan. marka meeshan waa meel aad iyo aad u wanaagsan. insha Allah sidaas ay doontaan markaas ay soo xiriiri doontaan information. okay asxaabta aad baan islaamaya.